ربي صل على الحبيب محمد وعلى الآل من هم الكرماء. magaalada Bergen ee caasimada labaad ee dalka Norway ayaa maalinnimadii shalay waxaa lagu qabtay kulan ballaaran oo lagu xusayay la iskuna xusuusinayay siiradii suubanu nabigeena sallallahu alayhi wasallam. Munaasabadan ayaa ka dhacday masjidka muslimiinta magaalada Bergen waxaana soo qaban qaabiyay qaar ka mid ah culimada magaalada Bergen. waxaana kulankan culimadii lagu casuumay ka mid ahaa Sheekh Maxamuud Guriceel oo ka mid ah culimada Soomaaliyeed ee reer Sweden. Munaasabadan mawliidka ayay culimada waxa ay si qoto dheer oga hadleen siiradii suubanu nabigeena sallallahu alayhi waxaana ka soo qayb galay qaybaha kala duwan ee bulshada Bergen kuwaas oo isugu jiray dhalaanka, dhalinyarada, haweenka iyo sidoo kale odayaasha. si aad u weyn ayaana meesha looga faa'iideystay. أعظم مخلوق وأقول كان دوشي سكسوري نبينا محمد صلى الله عليه وسلم سيدا دمانتين ودوسنتين نبي عليه الصلاة والسلام إلا وينيو الله برطو والشيء كميدة دينته بل برشدي سوا وحيالها الوغل الجنة. إلهي سبحانه وتعالى قرآن كيسوح كله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قفك وعد قد يكرتا مركا أقوان أدول هذا هاي سيدا قد ينسى نبي كاك هدية أنا قائم من فرح بنا فرحنا به ونحن يشهد الله عز وجل أننا فرحين برسول الله وبمبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما أنت قارد أنت مال والبا نقصامنتي دينتا يا صورة حمينتي قليين أو إسلام كذو ليستين أو دولديس ضعيفيان بعدك وحال ربك إن مرع أشهد أن لا إله إلا الله وحده الله يكون قال سيما الإنسان حقيت شوكتا إن أبنى نبي محمد سوق بصرنا ما بتشوكتا حتى كفوكتا حاجاتنا بسكوا بصنع ما النبي قال وحلا سكوا بصلاة نبي قال أنت اللي بنعب من إله ما النبي حديث البخاري كثير لا تضغطوني كما أضغطت النصارى عيسى بن مريم أفضل مريم نبي عليه الصلاة والسلام أنت هذا سيرة غير شاكيني نبي أن أعبدنا بيش وجهك لما عبد النبي هو عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وأبدون إلهي لكن حوية وأفضل الأنبياء ومعناها وحويا أتقى الأتقياء وضدك منك أخشى الناس وأتقاهم وأحلمهم وأرحمهم وأفضلهم وسيد الناس سيدنا ويانا سياشيتي أنا سيد ولد آدم حبه فرض عين حسنه لا نهاية خليلي دال خوف بعذاب مفراها دينه عند الله دائما لا يبلاها. النبي صلى الله عليه وسلم سوى نور أي عرضي أمانة وأجمل منك لم تر قط عيه وأكمل منك لم تلد النساء وخلقت مبرر من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. حسان بن ثابت marka wuxuu leeyahay afwaanka Soomaaliyeed Allahu naxariisto ruuxateedu noloshiisii damban aad masaa'ilka iyo dambaalada islaamiga iyo qiyamka islaamiga aad iyo ruuxan ugu muuqatay waxa marka wuxuu leeyahay nabigi ilaahu nuurkii islaamka adigoo adduunkiyo ifka wali ka maqan baa lagu sii odoroso ishaarooyin badan baa dadku ka arkeeno ayaamaha ilaahay qaar baa astaan leh toddobada ayaamood isniin baad ka dhalato adduunyada xuskaagii ololaha ka dhacayo ururweyne goortii oo xantaadu bururtaa xidiguhu ifeeno dayaxa ilayskii arladoo dhan gaadho lenuur buu iftiinkii uu dadkii u iftiimiyo dadkii qabiilka ahaa dad diin loo ka dhigo qiyam leh. waxaa inaga marka meelaha muhiimka noo ah inaan nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam oo noogu yahay qudwada inaan kaga dayna ay muhiimka tahay ummad argos u dhaxay oo nacayb u dhaxay oo dagaal dhex mareen yaa inaga laynaga rabaa naxariistii nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam sidii lagu keeni lahaa ee ummadeena looga saari lahaa nacayb ee qiyamka loo sarraysiin lahaa ayaa inaga tusaale ahaantii muhiim noo ah. gunaanadkii munaasabadan oo si weyn looga faa'iideystay ayaa waxa ay culimada iyo mid ka mid ah odayaasha reer Bergen waxa ay ku soo qatimeen duco ay ugu talagaleen ka soo qaybgalayaasha iyo guud ahaan ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogto.
waxaan leeyahay reerbergen waa dadaasheen dowladda alla noo xifdiyo adanna alla noo xifdiyo maalka alla noo barakeeyo ilaahay idinkiis kuwii nabi maxamed u soo dhowey ilaahay ka soo marka waxa weeyaan ducada allah na siiyo diinta allah noo sahlo inta xanuunsan allah noo daweeyo inta caafimaad qabta allah ziyaadiyo sanadkan iyo sanadaha ka dambeeya anagu kulli sanadkoo dhan sii fiicnaanay oo siirada nabiga ku dadaalnay oo cilmiga ku dadaalnay oo masaajidadeena camirnay oo awlaadeena iyo guryaheedii hidaayo iyo qabuul qulubta ilaahay u geliyey oo in masaajidka dambe buuxinayna allah na gaarsiiyo ilaahay hana tusiyo annagoo qof walbaaba kaaga soo horeeya meesha siirada lagu ahna kaaga soo hormaray allah na tusiyo salaada kaaga soo hormaray ilmaha qubbada maanta lala warweysay allah ma hawsho allah ma xafido xifdiga ilaa allah jiro diinta allah jeclaysiiyo nabiga allah jeclaysiiyo calayhi salaatu wasalaam ilaahay diintiisa iyo salaad diinka ugu horeysa bacda haddaba haddaynu nahay bahda Somali Voice in Norway waxaynu wax ka weydiinay dareenkooda qaar ka mid ah dadweynihii ka soo qayb galay iyo culimadii meesha muxaadarooyinka ka bixiyay. walaalka sheena oo maasan tahay bulshada hawsha oo heesana ila ajir xasanada Allah ka siiyo maanta waxa helna fursadii mawlidka waxa noo yimid sheekhana Sheekh Maxamed Cali oo ka magac dheer Sheekh Maxamed Gurcaal oo lagu yaqaano culimadana Soomaaliya caanka ah ra'iis Sweden ah siiradii nuurkii nafaxaadkii rasuulka barakadiisii raxmadiisii iyo khayraadkii sida uu la jaan qaadi lahayn iyo maadaama meelahan aan ku noolnahay sida awlaadeena kalgacaalka cadaaladda iyo walaaltinimada siiradaas ka sheekeynayso oo rasuulkeena oo ka sheekeynaya noloshiisa iyo ku deeshadiisa mudnaan ayaa maanta meesha lagu soo gudbinayay maanta si khayr leh oo dhacday mawlidka si fiican noogu fulay ilaahay idinkiisa idinkayna aan ahayn waxaan jecelnahay mawlidkiisa same iyo ziyaado alla nagu gaarsiiyo nimcada khayraadka ilaahay na siiyo ilaahay nagu darajeeyo ilaahay idinkiisa maxabada rasuulka ilaahay nagu guuleeyo dhammaantiina dadkiinaan ka soo qayb galay ama khayraadkan waday ilaahay idinku kaalmeeyo annagan alla noogu kaalmeeyo maasha allah qalb badan oo muslimiin oo iska maadeen iska nabiga sallallahu alayhi wasallam tii hore waan jooga aniga goob jooga ahaa tan goob joogana alxamdu rabbil caalamiin ummadda ilaahay waxaan ka baryaa sanadkeeda dambe in ilaahay khayr nagu gaarsiiyo xuskiisa dambe maanta waxay ahayd maalintii xuskii xabiibka sallallahu alayhi wasallam si wanaagsan oo sharaf badan oo qiimo badan oo qurux badan ee noogu dhacday waxaana mahadnas iskale awalan ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan sidoo kale aan rabaa inaan u mahad celiyo dadkii soo abaabulay oo hawshan soo agaasimay culamaa u diinkii muxaadarooyinka kala duwanaa iyo kelmadihii khayrka badnaa loo soo kala jeediyey maanta magaalada Bergen ee caasimadda labaad ee Norway waxaa noogu soo gabagaboobay mawlidkii nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa nagala soo qayb galay mashaayikh wanaagsan maasha Allah sheekhayna Sheekh Maxamed Gurcaal oo noogu imaaday dalka Sweden iyo culimada kale magaalada Bergen marka waxay noogu dhamaatay qaab wanaagsan maanta waxaan isku nimidnay nabiga sallallahu alayhi wasallam siiradiisii muxaadarooyin fiican baa la akhriyay kala duwan nabiga lagu saliyay sallallahu alayhi wasallam marka ilaahay mahadi aad iyo aad ruuxantii waan ku faraxsanahay in si fiican nabiga sallallahu alayhi wasallam iyo siiradiisii wax badan laga sheekeeyay hogaamintiisii laga sheekeeyay akhlaaqiyadkiisii laga sheekeeyay isagii noloshiisii oo soo maray laga sheekeeyay aad iyo aad baan ruuxantii ugu faraxsanahay ilaahay subhanahu wa ta'ala naga aqbalo jazakallahu khayran ma sha Allah maanta waxaan isugu nimid munaasabo looga hadlayo nabigeena suuban calayhi salaatu wasalaam siiradiisa raxmadiisa akhlaaqdiisa waxa weeyaan wanaagiisa iyo taariikhdiisa oo ka dhacday magaaladan Bergen khaasatan masjidka hadda aan joogno si wanaagsan bay u dhacday oo farxad leh ummadda luqadda carabiga loogu fasiray qayb ku hadleen culimada qayb luqadda waddankan bay ku hadleen qaybna af Soomaaliga ay ku tarjumayeen hadda waa arrin aad u faa'iido badan marka inaan isku nimaadno waa arrin farxad mudan munaasabo ah ummadoo dhan ay ku intifaacayaan in laga hadlo nabigeena subhanahu alayhi salatu wasalaam siiradiisii raxmadiisii maxabadiisa waajibka nagu ah inaan isbarno ilmaheena qurbaha ku dhashay aan barno waa arrin aad u farxad badan inaan kala soo qayb galno mushaarakeeyana aad baan ugu faraxsanahay barakallahu fiikum halkani waa Somali Voice in Norway ama codka Soomaaliyeed ee Norway waxaana idinla socodsiinaya aniga oo ah Cabdullaahi Shiine